kula wacan daawadayaal halkan waa Somali News Media qodobada ugu waaweyn ee warkeena maanta aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doono Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya oo casuumad naadir ah u soo diray Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre xogta waxyaabaha ay ka hadli doonaan labada dhinac ayaan eegi doonaa maxaa ka jira in Itoobiya ay abaabuleyso qorshe cusub oo ka ran ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud barnaamijkeena ayaan ku eegi doonaa qodobada kale ee barnaamijkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doono dawladda Uganda waxay hub iyo saanad military oo aad u culus ay u soo direysaa Soomaaliya si ay qayb kaga noqoto gulufka dagaal ee ka dhanka Al-Shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ka baaqday safar uu ku gaari lahaa maanta magaalada Buulaburde ee gobolka Hiiraan iyadoona magaaladaasi ay ka dhaceen dagaal qaraar diyaaradaha dalka Turkiga ayaana ku biiray dagaalada culus ee ka socda gobolka Hiiraan qodobada iyo sidoo kale maanta waxaan eegi doonaa qaar ka mid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed iyo ururada u dooda suxufiyiinta waxay Muqdisho ka dhigeen banaanbax ay dawladda kaga dalbanayeen in ay si shuruud la'aan ah ku sii deyso xogayii ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed oo loo xiray inuu ka soo horjeestay amarka dawladda qodobada iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan barnaamijkeena daawadayaal aan ku eegi doonaa markaana aan ku bilaabo maanta barnaamijkeena Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa ku wajahan maalmo kadib caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa sida xogo cusub oo soo baxay ay sheegayaan xubno ka shaqeeya xafiiska Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxa ay sheegeen in Ra'iisul Wasaaraha uu tagi doono Addis Ababa lana kulmi doono dhigiisa dalka Itoobiya Abiy Ahmed si faahfaahsan looma oga socdaalka wasiirka koowaad ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre balse wararka qaarkood waxay sheegayaan in dawladda Itoobiya ee Ra'iisul Wasaaraha ay ka damacsan tahay arrimo la xiriira in labada dawladood ay iska kaashtaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab sidoo kale xogaha la helay waxay sheegayaan in Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre uu sidoo kale uu gaari doono magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana halkaasi uu kulamo gaargaar ah uu kula qaadan doona madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cagjar oo hore halkaasi kula kulmay Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo dhawaanahan joogay dhulka dawlad deegaanka Soomaalida maxaa ka jira in dawladda Itoobiya ay abaabuleyso qorshe cusub oo ka dhan ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wararku waxay sheegayaan in Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya iyo sidoo kale Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ay kulan gaar ah ay yeelan doonaan isla markaana kulankooda ay kaga hadli doonaan arrimaha Soomaaliya oo la sheegayo in Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu aad u daneynayo maadaama Itoobiya iyo Soomaaliya ay aad isugu wanaagsanaayeen dawladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse hadda xukunka uu la wareegay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa xiriirkooda maalmihii la soo dhaafay wuxuu ahaa mid aan hagaagsaneyn balse safarkii madaxweynaha Soomaaliya uu ku gaaray Itoobiya ayay filla Soomaaliya ku sheegtay in safarkaasi uu yahay mid lagu tirtirayay madmadowgii koobnaa ee soo kala dhaxgalay labada dhinaca kale haddii aan aadno dawladda Uganda ayaa hub iyo saanad military oo aad culus u soo direysa Soomaaliya madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayaa waxa uu sheegay in uu ka jawaabayo codsi kaga yimid kadib markii uu kulan la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana ay dawladdiisa maalmaha soo aadan Soomaaliya ay u soo diri doonto hub iyo sidoo kale saanad military oo dagaalo ay dawladda kula gasho dagaalamayaasha Al-Shabaab Museveni ayaa waxa uu shaaciyay in intii uu joogay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Kampala ay si aad ah uga wada hadleen sidii dawladda Uganda ay Soomaaliya uga taageeri lahayd dagaalka ka dhanka Al-Shabaab wuxuuna sheegay in xilligaani dawladda Uganda qorshaheeda ugu horeeyay ay tahay in Soomaaliya ay la gaarto qalab military si ay qayb kaga noqdaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka Yoweri Kaguta Museveni madaxweynaha waddanka Uganda ayaa waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed ee is abaabulay iyo dawladda Soomaaliya uu ku amaanayo tallaabada ay u qaadeen in Al-Shabaab ay la dagaalamaan isla markaana ay ka saaraan dhammaan Soomaaliya wuxuuna sheegay in dadaaladaasi haddii ay sii socdaan ay noqon doonto kuwa Soomaaliya ay cagaheeda amni ahaan ay ku istaagto maalmaha soo aadan ayuu sheegay
in garoonka aadan cadde iyo sidoo kale qaybo ka mid ah Soomaaliya ay ka soo degi doonaan ciidamo badan oo u dhashay dalka Uganda si ay qayb kaga noqdaan dagaalada ka socda dalka. Qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeennana haddii aan eegno, maanta magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay banaanbaxyo ay dhigayeen qaar ka mid ah ururada suxufiyiinta Soomaaliyeed oo ay ku dalbanayeen in Cabdalla Muumin, xogaayihii ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee SJS uu cadaalad helo. wasaaradda warfaafinta aan dul istaago gebi ahaan aniga waxaan qabaa in la baabi'iyo wasaarad warfaafin oo dalka ka jirta. markaas saas leeyahay waxa adduunyada waa laga baabi'iyay mana ka jirto wasaarad warfaafin, waana sababta soo celcelinaysa khilaafaadka dawladda iyo warbaahinta madax bannaan. eega meelaha ay ka jiraan dictatorada waxaa ka jirta wasaarad warfaafin. wasaarad warfaafin waxaa loogu talagalay inay ka shaqayso dalka la doonayo in lagu caburiyo wariyaasha gudaha wasaaradda warfaafinta ku jira ay xantaab. waxaan leeyahay dhagaxaanta aad soo tuuraysaan nama soo gaarayaan si kastoo aad u soo tuurtaan waa idinka guulaysanaynaa. waxaan ku baaqayaa in dawladda federaalka Soomaaliya ee Xasan Sheekh madaxweynaha uu ka yahay in marka hore ay sii dayso si sharud la'aana xogayaheena Cabdalla Axmed Muumin oo u socday safar Nairobi oo kaga qayb galayay shir caalami ah oo halka ka dhacaya arrimaha saxaafadda adduunyada looga hadlay ayuu rabay. Cabdalla Axmed Muumin markuu ka dhoofay garoonka nisa ay gacanta ay ku soo dhigaysay xaaladiisa oo ka walacsanahay marka xigta waxaan leeyahay madaxweyne shalay cabashadii aad ka qabteen dawladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maantana ay taagan tahay. shalay ninkaad soo adeegsanayseen ayaa maanta na dhibaateynaya. xafiiskeena weli waxa ka taagan taagtaag ciidamaha reerihiisa taagan. ma u dul qaadan karno in shaqada xogeeyayna xirateen oo idin xiran ilaa aan sii deyn. haddana ma u dul qaadan karno. waxaan ku baaqaynaa in marka hore xafiiskeena loo ogolaado shaqaalaha inay galaan. ciidan far badan 24 saac ku hareersanaa ciidamada joogay xafiiskeeni waan gali la'anahay. kuwii ku jiray ee gudaha ku jiray ayaa soo bixi la shaqada ayaa ka socon laadahay ciidanka dawladda. waxaa tusaale u ah in habeen madow ciidamo ka socda NIS ay u dhaceen xafiiska SJS. muuqaaladaan soo bandhignay haddana waxaa socota in ciidamaha hareeraha ay ka taagan yihiin xafiiskeena. markastoo goobta tagno ciidamaha jooga. marka waxaan leenahay dawladda marka hore laba shay ha samayso. tan koowaad Cabdalla Axmed Muumin ha sii dayso si sharud la'aana. tan labaad ciidamadeeda ha ka dulqaado xafiiska SJS oo hareeraheed ciidamo ay dhigtay. taasna waan ku baaqaynaa ciidamada markaan ku celinaya ciidamada dharcadka ah ee ku sugan hareeraha xafiiska SJS. dawladdu waxay ugu baaqaynaa in halkaas ay ka qaado. marka xigta Cabdalla Axmed Muumin ha la soo daayo. marka saddexaad waxaan ku baaqayaa si wada jir aan ugu baaqaynaa in wasaaradda warfaafinta oo ah wasaarad u taagan inay dhibaatayso suxufiyiinta dhibka la soo maray wax ku ah wasaaradda warfaafinta. marka hore in la baabi'iyo guddi madax bannaan loo saaro ma shaqayn karto. xilliga wixii ka dambeeyay wasaaradda warfaafinta dawladda uma baahna. waxaan rabnaa baarlamaanka in arrintan uu ka fariisto uu baabi'iyo sababtoo waa caburin. waan ognahay waxa u soo joognay shalay waxa lagu tiimbareynayay Abuja inuu shabaab yahay. maanta waxa la taagan yahay wariyihii xaqiiqda ka hadla waa shabaab. halkee laga galaya marka sidee wax loo sheegaya sidee wax loo tabinaya halkee la aadaya meel la aadama anaga shabaab uma shaqeyno warka shabaab ma boombayno. dawladdu haday shabaab rabto hala dagaalanto. annaga waxa rabnaa wadada 2009 annaga diiday in aan u hogaansano go'aan ay soo saareen al-shabaab. anaga diiday waa sababta bakaara naga soo waday. waa sababta bakaara warbaahinta dhan ay ugu soo carareen. waa waalid dadkeena asxaabteena dileen waa ognahay. laakiin dawladdu waxaan ka rabnay inaan dhahdo war sidee wax loo sameeynaya. waxaa kaloo jirto agaasimiyaal hadda loogu wacay wasaaradda warfaafinta. agaasimiyaasha waxaan dhihi lahaa war ka jooga saaxiibkiina xiran walaalkiina xiran bari idinkeeda ku dhici kartaa. annaga kaliya ma Cabdalla kaliya ma anaga ku dhici kartaa midka kale ku dhici kartaa. marka meel ha loogu soo wadiyo talaabada hadda ay dawladdu ku socoto haddii aan hal mowqif hal go'aan laga qaadan waxay dhirin doontaa in qof walba wari ah Muqdisho ka shaqeey inuu bari ka cararo. sabab la xiriirta hadal ka soo yeeray dawladda sabab la xiriirta dawladda micnaheed hadal ka soo yeeray wariyaasha hal dilo waaye mana ka yeelin anaga shabaab uma shaqeyno. warbaahinta shabaab shaqeynaysa halkee joogta warbaahinta al-shabaab boombooniso intee ku aragteen cod warbaahin al-shabaab intee lagu arkay. marka waxaan u aragnaa weli waan ku celinayaa hadalka wasiirka xigeenka warfaafinta ka soo yeeray waa mid la doonayo in lagu caburiyo wariyaasha lana doonayo in lagu dilo lagu banaysto dhiigga suxufiyiinta Soomaaliyeed. Cabdalla Muumin ha la soo daayo agaasimayaasha loogu wacay wasaaradda warfaafinta ha ka joogaan. waa maasantiin. guud ahaanna saaxiibayaal waxaan jeclahay inaan halkan ku soo afmeero barnaamij wareedkeena aad ka daawanayseen Somali News Media inta barnaamijkan kiisi xigaan ku kulmi doono nabadgelyo.